بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنيقو مركو هوري إذكو السلام سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقعي هو رشيد عبد الله قاس، قدوميها قربة شوكتا بيلها قبويه. waxaan uga faa'iideysanayaa farriintaydan amba message-kaygan ama risaaladaydan munaasabadda sanadka cusub ee 2015 inaan xaggan uga tabiyo tahniyad iyo bogaadin dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan beelaha Gabooye meel kasta daafaha dunida ka joogaan. waxaan Ilaaha qaadirka ee raxmaanka ah uga baryayaa beelaha Gabooye in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sanadkan uga dhigo sanad is-afgarad, sanad isu soo dhawaansho, sanad barwaaqo, sanad horumareed, sanad ka gudub caqabadihii iyo kala baahsanaantii faraha badnayd ee muddooyinka badan haysatay. in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sanadkan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inooga dhigo. haddaan taa ka gudbo, walaalayaal, 20 bishii November 2014 amba 14 waxaan ka qayb galnay shir caalami ah oo ka dhacay Geneva, xarunta United Nations ee wadanka Switzerland. shirkaasoo qabanqaabadeeda iyo haddii bukuuro yahay diyaarinteeda uu iska lahaa خير بدن الله سيه. ولكن قدومية ناصر محمد عيسى وقدومية Minority Organization for Europe and North America. وحكرنا قال قيب قالي بقر أحمد وقاس إيمان ورسمه بقر كجود بيلها جبوية. وحكرنا قال قيب الشيء وسير كحيجانك هوانك اسمه دولة قبلتك بوتلاند مرو فرحية يوسف. شركاسي waxaa ka soo qayb galay dhowr iyo 20 dawladood, minority-goodii amba dadyogoodii laga tiro badnaa. muddada 7 cisho socdayna beesha Gabooye caam ahaan guul fara badan baa u soo hoyatay. waata goowaade ururkan Gabooye Minority Organization oo loo aqoonsaday inuu yahay urur u dooda amba matala beelaha Gabooye. aqoonsigaas oo laga siiyay midowga Yurub, jaamacadda Carabta, ururka dowladaha Islaamka iyo ururka midowga Afrika iyo dowladaha IGAD. organization ururo iyo hay'ado fara badanna ay aqoonsigaas iyaguna ay qaateen. waxa kale oo shirkaas guulka ka soo heetay ay tahay in xubin 13aad ee xubnaha joogtada ah ee minority-ga lagu daray boqor Axmed Ugaasimaan. waxa kale oo shirkaas ka soo helnay in dadyoga minority-ga ee ku sugan qurbaha in xaaladahooda si bini'aadamnimo oo baahsan wax looga qabto. in xakameyn lagu sameeyo dadyoga aan haybta Gabooyaha ahayn ee isku dhiibaya inay yihiin Gabooye. intaas oo arrimood walaalayaal waxaan qabaa inay tahay arrimo lagu farxo, arrimo la soo dhaweeyo. xilliyada qaar ma jirin Gabooye United Nations ka hadlaan qadiyadiisa gaarsiiyay, laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin. marka in gacanta la isqabsado, in la isu soo dhawaado, in ixtiraam iyo mudnaanta cidii wax qabanaysa aan lagu dhaliilin waa hayb, aan lagu dhaliilin waa reer, aan lagu dhaliilin laakiin
waxqabadka muuqda ee mugale lagu soo dhaweeyo oo lagu garab istaago taa waxaan ku keenay amba aan uga hadlay ma waxba kama nagama dansaneyn waxyaabaha la isu soo dhigayo barta Facebooka oo ahayd waxyaabo macnaheedu qof dad bil'aadmiya oo karaamadooda iyo sharaftooda si mutadawacnimo ah oo si bil'aadminimo ah oo si isxilqaamisa يعني ummadooda wuxuu ku qabanaya hadana dhaliilo iyo ma garanaysaay loo soo jeedinayo waxyaabo aan laaqi amba waajib ahayn laakiin nin xilqaad ay hor Soomaali u tiri carabna waxay tiri algaayat akthar min raayahat يعني inta waxa soo socda way ka badan yihiin wixii tagay marka in la isu guntado la isu soo dhawaado waxaan baa u dirayaa dhamaan qurba joogta gabooye meel kasta joogaan baaqayga soo ku wajahan umadaha kale qurba joogtooda badiyaas barado way naga baraka badan yihiin laakiin inaga ma tira badna dadkooda samafal bay u sameeyaan dadkooda iskuule u sameeyaan dadkooda dhakhtarre u sameeyaan dadkooda haddii ku rooyahay dhaqaale kobac kor u qaadis bay u sameeyaan war waxaan idin leeyahay oo idin faraya sanadka 2015 isbedel aynu keenno oo dadkeeni dalkii ku tabaalaysan ee aad ogtiin xaaladaha ku sugan yihiin mid cusuriyeed mid maadiyeed mid yani dhibaatadu ma la soo koobi karo qof wal oo inaga midina dalkiibu ka yimid xaaladu markuu joogay dadkeena lagu dhaqmay amba ku sugnaa wuu ogaa laakiin dadka iyaga iskacan qabto wax iska saara inaad gacanta la isqabsado in la iska saaro wax allaala wixii xumaana ee dadiyowga ummadda wax u qabanaya in la is dhageysto in la isu soo dhawaado in hadeeba ku rooyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu ka baqano ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahad aynu mar walba mahadnaq u sameeyno ilaaha bil'aadmi iyo islaam naga dhigay ee caafimaadkeena siiyay ilaaha gabooye naga dhigay inuu mahadnaqno sababtoo ah gabooye ilaahay baa uumay in male cid kama qurux badna cid kama wanaagsana cid kama dhaadheera cid kama aqoon badna laakiin tayadoodu waxay ku dhiganta waxay ku baaba'aysaa ay ku milmaysaa tawfiiq la'aan iyo isu soo dhawaasho la'aan in ilaahay tawfiiqdeen ina waafajiyo in ilaahay bogga baracsu keen mariyo in ilaahay sanadkaas sanad isbedel degdega ilaahay inoo soo dejiyo ayaa waxaan idinka codsanayaa nin walow oo qurba joogowga ilmahaagii yani way nool yihiin ambaha kula joogaan ambaha ka maqnaadaane de ilmaha kale ee gabooye ee aan cid u maqnayn ceelna u qodnayn lama mid aha marka inaan jiilasha iyo caruurteena iyo dadkeena dhibaataysan inaan ogaano aqoontooda kor u soo qaadno wax us abuurno waxaynu inagu u bilowno ayaa waxaan qabaa ummadda kalena gacan nagu siinaysaa hay'adaha kale adduunkuna gacan nagu siinayaan inaguna taakulaynayaan marka anigu walba inta tib dhexda xirato oo hadii ku rooyahay tanqato oo dhidido oo yani iska noolo iska dhima maaha waa in mar walba ina cabanayna heeriya nasaaran cunsuriyad bana lagu hayaa xaqraad bana lagu hayaa sanana lagu hayaa waxa weeye inagu inaynu horto saxno inagu isu soo dhawaano inagu hadii ku rooyahay cidda wax qabanaysa ixtiraamno cidda wax qabanaysa yani muujino ma garanaysaay maanu arag hambali maanu arag ma garanaysaay waa guul hadii laga tago in fara ku turisa marka ma habboona qofkii wax qabanayna in la dhaliilo isagoo waxba qaadanayn yani xagaasaan ka baxnay
annaga isfangareynayni gudoomiyaha isaga soo fangareey anigu halkaana iska fangareey hoteelka annaga lacagteeda kala baxayni qadiyadu inay fariintu gaadho oo wixii dalkii joogana wixii dhibaato ay qabaan la gaarsiiyo in wixii loo qaban karana qodobada laga hadlo kuwa dibadda jooga ee gabooyo isku dhiibayana in la xakameeyo kuwa gabooyo ahaa ee dhibaataysan ee amba dhibahaysana in dawladihii dhibaatada amba negatifyada amba diidmooyinka ay ka haysteen in xiriir loola sameeyo marka walaalayaal waxaan qabaa iska hadal looma hadlo ilaahay xaqayna garasiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala bugeer barada sumariyo waan ku dheeraadaan filayaa aad baan idin salaamayaa salaamu alayhi alaykum rahmatullahi ta'ala man marlabaad ku salaamayaa gabooyo midnimo wabillahi tawfiiq